Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Soo dhawaada saaxiibayaal. Waxaan ahay macalin Saciid Yuusuf Maxamed. Waxaan muuqaalkan kugu soo gudbinayaa casharada lagu qaadanayo course-ka ee Camtasia Studio 2021. Markaynu fiirino course-kan si guud ahaan waxa uu ka kooban yahay ilaa iyo 25 cashir. 25kaasi cashir ama muuqaal waxaa la socda software-ka oo markaasi isagu raar ahaan ah. Haddii aynu eegno casharada 25ka casharka koowaad oo kale waxaynu ku qaadanaynaa waa introduction to the Camtasia, waa markaasi hordhac marka ku saabsan Camtasia Studio gaar ahaan version-kan 2021. Casharka labaad oo markaasi waxaan markaasi ku qaadanaynaa downloading, installing and activating Camtasia Studio. Waa sida loola soo dego oo Camtasia, yani inaga ayaa soo dirayno, markaan soo dirno kadib oo anaga ayaa markaasi soo dirayno, markaan soo dirno sida loola dego kow. After that computerka loogu rakibo waa installing, loogu shaqaysiiyo oo watermark loogu saaro ayaan markaasi casharka labaad aynu ku baranaynaa. Haddii aan aadno casharka saddexaad waxaynu ku baranaynaa waa Camtasia Studio 2021 interface, muuqaalkiisii hore sida markaasi uu yahay iyo meelaha magacyada loo yaqaano, iyo casharka saddexaad aan ku qaadanaynaa. Casharka afraad waxaynu ku qaadanaynaa qayb ka mid ah qaybaha markaasi uu ka kooban yahay ama shaashada interface-ka uu ka kooban yahay. Waxaan ku qaadanaynaa waxa loo yaqaano menu bar. Casharka shanaad waxaynu ku qaadanaynaa toolska agabyada uu Camtasia Studio-gu markaasi isaga uu leeyahay ayaa markaa ku qaadanaynaa. Casharka lixaad haddii aan tagno isagu waxaynu ku qaadanaynaa waa how to record iyo waxawaaye the screen, sida loo duubo shaashada, sida loo duubo. Anigoo kale hadeertan shaashadan ayaan idin duubay, sidee marka loo duubaa shaashada waa casharka lixaad. Casharka toddobaadna waxaynu ku qaadanaynaa record and open, maxay sida markaasi loo duubo isla markaana loo soo furo waxa loo yaqaano new project, sida markaasi loo furo. Kan hore waxa waaye waa iska si guud aan u dulmaraynaa, laakiin kan toddobaad waxaan sameynaynaa isagaan duubaynaa, casharaan duubaynaa. After that waan soo furaynaa iyo waxyaabo markaasi la xiriira ayaan markaasi casharka toddobaad ku qaadanaynaa. Casharka sideedaad waxaynu ku qaadanaynaa waa adding icons, sida icon iyo sidoo kale sawiro loogu daro project oo markaasi kugu diyaarsan Camtasia. Casharka sagaalaad waxaynu ku qaadanaynaa waxa loo yaqaano annotations, waxa uu yahay iyo sidoo kale sida loo sameeyo. Casharka tobanaad waxaynu ku qaadanaynaa waxa loo yaqaano transition. Casharka 11aad haddii markaasi aynu aadno isagu waxaynu ku qaadanaynaa waxa loo yaqaano intros iyo outros, sida loo sameeyo intro ama muuqaal intro ah oo qurux badan oo markaasi attraction leh. Sidoo kale outro sida markaasi loo sameeyo waxa uu yahay mid walbane marka hore waan qaadanaynaa. After that waan sameynaynaa intro iyo outro, waan markaasi inagoo adeegsanayna software-kan Camtasia Studio. Casharka 12aad waxaynu ku qaadanaynaa waxa loo yaqaano lower third, sida markaasi lower third-ka sida loo sameeyo kuwa markaasi iyagoo diyaarsan meelaha laga heli karo iyo waxyaabo badan oo la xiriira. Casharka 10aad ama 13aad waxaynu ku qaadanaynaa waa motion backgrounds, waxa la yiraahdo ama background-ka gadaashaadii si markaasi loo dhaqdhaqaajiyo ayaan kaga hadlaynaa. Casharka 14aad waxaynu ku qaadanaynaa waxa la yaqaano music tracks, waxa waaye in codad hoose in markaasi lagu daro. Casharka 15aad waxaynu ku qaadanaynaa ama waxa la yaqaano behaviors, tusaale ahaan loogadaadii inaad dhaqdhaqaajiso oo kale waxyaabo markaasi la xiriira. Haddii aan aadno casharka 16aad waxaynu ku qaadanaynaa waa animations, oo markaasi tusaale ahaan shaashadaada marka qayb ka mid ah inaad soo zoom garayso iyo shay inaad dhaqdhaqaajiso. Casharka 17aad waxaynu ku qaadanaynaa cursor effects. Hadda cursorkan hadda effect ayaa markaasi ka saaran, yani waxa waaye muuqaalkiisii waa markaasi sida caadiga uu ka duwan yahay oo aniga ugu talagalay. Marka sideen u sameeyay casharkan 17aad ku baranaynaa. Casharka 18aad waxaynu ku baranaynaa waa audio effect, sida markaasi codadka wax loogu bedelo haddii buuq uu jiro oo meel aad duubaysid, haddii buuq uu jiro buuqa sida loogu saaro, codka sida sare loogu qaado, codka sida loo boobsiyo, waxyaabo badan oo codka la xiriirane waxaynu ku qaadanaynaa waa casharka 18aad waana audio effects. Casharka 19
19aad waxaynu ku qaadanaynaa wax loo yaqaano visual effects muuqaalka sida loo bedelo tusaale midabkaaga oo kale inaad wax ka bedesho gadaashaadii in sawiro ama waxyaabo kale sida markaas aad u saarato waxyaabo kale oo qurux badan background aad uga dhigato cashirka 19aad ayaan ku baranaynaa cashirka labaad waxaynu ku baranaynaa wax loo yaqaano voice narration yani cod muuqaal oo kale jira in aad cod dul saarto after that codkii markaad dul saarto yani tusaale ahaan muuqaal mujaajalo ah oo kale inaad tarjunto oo kale codka muuqaalka adigoo fiirsanaya inaad ka kor tarjunto oo kale waa voice narration waan qaadan doonaa cashirka 21aad waxaynu ku qaadanaynaa waxa loo yaqaana blur and highlights sida markaasi aweer loo saaro gadaashaadii tusaale meel baad wax ka duubaysaa meeshan aad wax ka duubaysay dad baa soo maray ama dadaa meeshii taagan marka dadkaas sidee dabool loo saaraa cashirka 21aad ayaan ku baranaynaa cashirka 22aad waxaynu ku baranaynaa wax loo yaqaan tracks waxyaabo la xiriira tips ama farsamooyin oo markaasi lagu baranayo ama la xiriira trackska cashirka 13aad waxaynu ku baranaynaa exporting sida muuqaalka ama projectiga aad diyaarsatay exporting loogu sameeyo oo video caadi loogu dhigo cashirka 24aad waxaynu ku baranaynaa wax loo yaqaano project templates naqshado oo diyaarsan oo yani waxa weeye oo qurux badan sida markaasi loola soo dego iyo waxyaabo la xiriira halka cashirka 15aad ama 25aad oo markaasi ah cashirka ugu dambeeya ee course-kan ee Camtasia Studio 2021 aynu ku qaadanayno waa shortcut keys xarfaha markaasi ama shortcutska loo adeegsado marka la joogo ama la adeegsado marka la joogo Camtasia Studio guud ahaan si gaar ahaan version-kan 2021.5.0 waxaan filaa in 25kan cashir ee aan ka diyaarinay ama muuqaal ee aan ka diyaarinay course-kan in wax badan markaasi laga faa'iideysan doono waa hadii markaasi aad iska diiwaan gelisid course-kan waxay ka saacideysaa inaad wax badan aad sameysid waa sida aan markaa rajeynayo si aad isaga diiwaan gelisid course-kan waxaad nagala soo xiriiri kartaa nambarada iyo sidoo kale social media shaashada ka muuqda oo kala ah Instagram Telegram iyo sidoo kale WhatsApp ayaad markaasi nagala soo hadli kartaa insha Allah waan ku diiwaan gelinaynaa software-kana waan ku soo diraynaa waxaan rajeynaynaa in course-kan aad markaasi ka faa'iideysato waliba si qurux badan muuqaalo qurux badan adiga aad sameysato halkii aad horay ugu tagi jirtay asxaabtaadii oo qof inuu ku sameeyo wixii markaasi aad ka codsan jirtay in adiga hadda iskaaga aad u sameysato ayaad awood u leedahay waa hadii aad barato course-kan aad iska diiwaan geliso inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkan aynu kaga hadlaynay cashirada lagu qaadanayo course-ka Camtasia Studio 2021 inta aynu ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sida nabadiino wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh